السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni ciyaaraha oo aan maanta kaga hadli doono wararka ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga kulamadii xalay la ciyaaray kooxda kubadda cagta PSG oo u gudubtay finalka kama dambayska Champions League iyo kulamadii la ciyaari doono cawada ayaa idin soo gudbi doona mahadsan aan ku bilownay kulankii xalay la ciyaaray ee Champions League ee u dhaxeeyay kooxda kubadda cagta Bayern Munchen oo martigelisay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa kusoo idlaatay 90 daqiiqo hal iyo hal ciyaarta markii 3 daqiiqo maraysa waxaa gool u dhaliyay ciyaaryahan Ousmane Dembele oo waxaana daqiiqadii 9 ka barbareeyay ciyaaryahan Harry Kane sidaasi waxaa 5 iyo 6 uu soo gudubtay kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain oo kula ciyaari doonta magaalada Budapest kooxda kubadda cagta Arsenal taariikhda markay tahay 30 bishan ayay ku wada ciyaari doonaan halkaas anaadno wargeysadii iyo waxyaalaha suuqa ay ka qoreen kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la sheegay inaysan dooneynin ciyaaryahan Marcus Rashford oo 28 jir ah inuu kooxda dib u soo laabto xilli ciyaareedka soo socda deesan ayaa qortay kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa dooneysa tababarihii hore ee kooxda Real Madrid Jose Mourinho inuu dib ugu soo laabto laakiin kooxda Benfica ayaa rabta inuu sii joogo xal xilli ciyaareed kaleeto AS ayaa qortay kooxda Arsenal iyo kooxda Barcelona ayaa daneynaya ciyaaryahanka kooxda Chelsea ee khadka dhexe kaga ciyaara Enzo Fernandez oo 25 jir ah halka sidoo kaleeto ay tartan xoog ee kala kulmi doonaan kooxda Manchester City oo doonaysa ciyaaryahanka Argentina oo ciyaara Team Talk ayaa qortay kooxda Newcastle United ayaa doonaysa inay la soo siixato goolhaye cusub iyadoo diiradda saaraysa goolhayaha kooxda kubadda cagta Manchester City keedka kaga jira ee James Trafford iyo goolhayaha kooxda Brighton iyo xulka Netherland Bart Frenberg oo 23 jir ah Telegraph ayaa qortay kooxda Arsenal ayaa la leeyahay waxay 120 milyan ay ka heli doontaa finalka Champions League ee tagtay 120 milyan oo pound ay heli doontaa sidaas waxay la sheegay inay doonayso ciyaaryahano cusub inay ciyaaryahan iska gado ciyaaryahan kale ay la soo siixato kooxda Brentford ayaa doonaysa inay la soo siixato 19 jirka xulka Australian difaaca kaga ciyaara Janik Schuster oo ka imaanaya kooxda Red Bull Salzburg The Athletic ayaa qortay kooxda kubadda cagta Tottenham iyo kooxda Brighton ayaa doonaya Jan Paul van Heek oo 25 jir ah sidoo kaleeto waxaa ayagana doonaya kooxaha Chelsea iyo Liverpool waxay siinayaan ciyaaryahanka xulka Netherland difaaca kaga ciyaara Team Talk ayaa qortay intaas ayaa kusoo gabagabeynaa wargeysadii waxa ay qoreen anaadno markan kulamada laga ciyaari doono iyo kulamadii la ciyaaray ee kubadda koleyga kooxda kubadda cagta Al Nassr waxaa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta Al Shabaab saacadu markay tahay 3 saac habeenimo ciyaartaas ay soo gali doontaa aan ku darno warar kaleeto ciyaaryahankii hore kooxda Liverpool iyo xulka Uruguay ayaa la sheegay Darwin Núñez inuu dib ugu soo laaban doono horyaalka Ingiriiska intaas ayaa kusoo gabagabeynaa barnaamijkeeni ciyaaraha inta barnaamij midkaan dib kaga kulmi doono subscribe like share halka page-keena Facebook follow comment iyo like mahadsanid